أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii barakaysneed oo ramadaan. bishaan waxaanu soo qaadanaynay duruus bisha ku tacalluqaysa fadlaa-isho iyo waxa weeye axkaamta bisha tan ay iska leedahay soonka la soomaayo. waxyaabo badan oo markaasi fawaa'ida ayaanu ku soo qaadanaynay. duruuseena marka ramadaaniyada hadda waxaanu qaadanaynaa darsigeenni 10aad ayaanu qaadanaynaa. darsigan aanu qaadanayno waxa uu la xiriiraa aakhirkii darsigeenni hore oo 9aad oo ahay markaasi niyada iyo xukunkeeda ayaanu qaadanaynaa. iyo waxaa kaloonu qaadanaynaa maa yustaxabu lisaa'imi, qofka sooman waxyaabaha loo sunneeyo oo laga doonaayo markii waxaa weeye soonka uu ku jiro inuu la yimaado laga rabo. marka waxaanu horay u soo qaadanay oonu darsigeenni 9aad aakhirkiisa aanu ku qaadanay xadiiska nabigeena calayhi salaatu salaam uu dhahayo asxaabu sunan ay wariyeenoo xadiiska xafsa binti cumar ay werisay ahay oo ahay man lam yujamic isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah. qofkii waxaa weeye niyada aan habeenkii aan aruurinoo niyeysanin fajarka intousan dhalanin ka hor wax sooma ma laha. riwaayadda kalena waan qaadanoo aheed ayadune qofkii waxaa weeye niyada habeenkii aysan ku barinow dha rasuulku salaada subaxa ka hor fajarka weeye wax soomahow leeyaha ma jirto. marka halkaas markay noo joogto lacalla haddii ay dhacdo qofkii waxaa weeye maaragtay soonkii niyadii baa ka tagtay. waxaan weliba warkeenna ku dambaysay casharkeenni horo soonku inuu yahay maalin kasta cibaado mustaqila ay tahay xadiiskaasaa laga qaadanaya oo maalin walba ay u baahan tahay soon markaasi waa weye niye in lala yimaado, biri in la soomaayo ah in lala yimaado la rabo. a'imada markaasi ahlulmadhabka waxaa markaasi kulligood saasay qabaan ilaa abaa xaniifa maahe. abaa xaniifa isagu wuxuu leeyahay haddii waxaa weeye qofku bisha soon hadday dhalato markaas soon ou niyeysto bishaan soo socota habeen walba inuu soon xirta lagama rabo u leeyahy. laakiin hadda xadiiska daahirkiisa markii la fiirsho a'imadina waxaa weeye ay isku waafaqeen waxaa la rabaa cibaado mustaqila inuu laga dhigo maalin kasta in laga dhigo sidaas. maxaa yeele xadiiska daahirkiisa saas ayaa laga qaadanayaa man lam yubayit isiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah. haddii masalan ba hadda ay dhacdo waa dhacdaahe qofkii inuusan habeenkii soonkii uusan niyeysanin ee fajarkii ou ku dhasho maalintaas ramadaanka ma iska cunayaa ma iska wax kasta mau samaynaya u banaanaa jiray laa. waxaa weeye maalintaas maalin xurmadeeda iskala weeye. waajib farlucayna waxaa ku ah qofku inuu maalintaas soomo. habeenkii hadduusan niyeysanin oy saas arrintu ugaga tagtay maalintaas waa soomayaa. maalintaas marka uu soomane maalintaas markuu soomo maalintaas waa soo qalayhaa. inuu soomo wuxuu u soomayaa lixurmati lwaqti, xurmatulwaqti ayuu u soomayaa. waajib marka waxaa ku ah inuu soomo waajibay ku noqonaysaa. dad waxaa jira caamo ah oo dhahaya anugu xalay soonkii ma xirin oo xirashadii waa iska halmaamaye maanta sidaasaan cuntada isaga cunaa dhahaa. xaaraam weeye. cunto bil maaragtay yaa ramadaana wax la cuno soor la cuno waa xaaraam sideedaba. ilaa dadki markaasi ahlul acdaarta ahay oo qur-aanka ilaahay uu ku sheegay rasuulkuna uu sheegay oonu qaadan doono dadkaas mooyaane cid kalentood oo markaasi soonkaas maalintaas xurmadeeda baabi'i kartaa ma jirto. haddii kale arrintaasi dembi bay ku tahay. qofku waa soomayaa lixurmati lwaqti ayuu u soomayaa, soonkaasna waa soo celinayaa. taas way xukunkeedu. inaad tiraahdid maahan
mar haddaan habeenkii niyadii aan iska halmaamayo soonkii aanan xiranin waa iska cunayaa waa iska cabayaa waa jimaacayaa xaaraam weeye taasu. marka xadiiskaas waxaa weeye xadiis aanu horu soo qaadano weeye. marka kan waxaanu qaadanaynaa axaadiista oo markaasi loogaga waramaayo maa yustaxabu lisaa'imi qofka saa'imka hoo sooman waxyaabaha loo sunneeyo ayaanu maaragtay yaa qaadanaynaa. markaanu qaadanayno waxaanu ka bilaabaynaa waxaa ka mid a waxyaabaha qofka saa'imkaa loo sunneeyo waxaa ka mid a suxuurtaa ka mid a, afurka la dedejiyaa ka mid a, lisaanka la ilaaliyaa ka mid a. waxyaabo badan ayaa markaasa waxaa weeye qofka saa'imka inuu limaada la rabaa. waxaan marka waxaa weeye aanu soo qaadanaynaa xadiis markaasi saxaabiga jaliilka laga wariyay Anas ibnu Maalik khaadimkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa nabigeenu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam tasaxaruu fa ina fi suxuuri barakatan. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay suxuurta ayuu dhahay, maxaa yeele suxuurka waxaa ku sugan baraka ayaa ku sugan. suxuurtu waxay leedahay waxyaabo markaasi waxa weeye khawaasa oo gaar ayay iska leedahay. waxyaabaha marka ku sugan waxaa kamid a sida rasuulkeenu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam baraka ayaa ku sugan oo soonkaas la soomaayo waa barakoobaya. marka in la suxuurto amarkan hadba tasaxaruu uu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam amarkaas waxaa leeyahy waa amru nadbiyaa layidhi. amarka markaa amrulwujuub ma ahan, maxaa yeele amar kasta laguma xambaaro wujuub laguma xambaaro. amarku hadduu ka yimaado min allaahi ou ka yimaado oo min rasuulihi ou ka yimaado, culummada markaasi usuululfiqiga sida ay u qaybiyeen waxaa weeye amarkaasu waxau noqonayaa amrulwujuub ou noqonayaa, ama wuxuu noqonayaa amru nadbi ayuu noqonayaa, ama amrul ibaaxa ayuu noqonayaa. intaasna hadda haddii lasoo qaato kulligood qur-aankaa laga helaya. marka hadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu leeyahay tasaxaruu nabigu markuu leeyahay haddee amar kasta la yidhaahdo amaraa laysi siiyey hadda diintu dhibaatay ahaa laheeday. amarkaa amru nadbi waaye, amrulwujuub ma ahan, amrul ibaaxana ma ahan. markaa suxuurtou dhaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa ina fi suxuuri barakatan, suxuurta baraka ayaa ku sugan. umahaadkao dhan waa wariyeen haddii abi daa-uud laga reebo xadiiska kan. marka saxuurta nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay baraka ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay inay markaasi soonkaas uu barakoobayo. hadda suxuur la yidhaahdo waxaa weeye waxaa laga wadaa alaglu fi saxraa la yidhaah, waktiga hiraabta ay tahay in wax la cuno ayaa la yidhaah, ayadoo weliba loo cunayo biniyati soom, soon markaasi idoo loo niyeysanayo qofkaanu soonkaa biri ou soomaayo inuu u xoogeysto oo waxa weeye qawi ou ka helo in loo cuno ayaa markaasaa waxa weeye loo baahan yahay. sidaas markii la sameeyo saas waa sunno weeye. amarkuna waa amru nadbi saan u sheegnay. tasaxaruu haddii siinka markaa la kor dhigane maa yu'kalu saxarana la yidhaah. waxa weeye waktigaas oo maaragtay suxuurta in la cuno biniyati soom loo cuno. maxaa yeele nabig waxau dhaha fa ina fi suxuuri barakatan, macnaha quwa calaa soom. qofku waxaa weeye soonka awoodo u yeelanayaa, ajir weynna waa ka helayaa. maxaa yeela amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu qaatay, haddana waxa uu cunaayay cibaado oo ilaahay faral uu ka dhigay oo rugnu min arkaani alislaama inuu awood u yeesho oo cibaadadaas uu falo ayuu u sameeyey. niyadaas wanaagsan marka waxay u keenaysaa ajir weyn ayuu ka helayaa oo soonkiisi baa ku barakoobaya. saxuurta marka wax yar iyo wax badan saxuuray noqonayaan. maxaa yeele riwaayad kale xadiis waxau dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam tasaxaruu
walow jarcatan min maa-in ou rasuulku tasaxaruu walow jarcatan min maa-in hal mar biyo adka boosood qurjuc siisaba allah ka dhige waxa weeye markaasi saxuurta waa loo baahan yahay. saxuurta shardi ma inaa cunto fara badan iyo cunto shardi ma ahan, waa ku tegi doonaahe. waxaa weeye nabiga calayhi salaatu salaam qaaya wuxuu ugaga dhigay hal marood biyo kabootiin ba allah ka dhigo. dadka waxaa laga yaabaa dad badanaa waxaa dhacda waxay yidhaahdaan anigu waxaa weeye waktiga afurka iyo wakti aan casheeyey waktigaasaan cuntadii si fiican u cuno ma saxuuro karo ku leeyahy. ama waa dadanba waxaa weeye aan soo kacaynin oo waktigii la rabo in la soo kaco la cibaadeysa caado aysan u hayn ay soo kacaan. marka dadkaas waxaa weeye waa qaldan yihiin, sababtoo saxuurta looma cuno dhereg looma cuno sideedaba, macnawiyaad ku jira oo barako ah ayaa loo cunayaa. marka hadduu saas yahay waxaa la rabaa inuu ina soo kaco galaas biyaax wax yar uu cabo ama wax yaroo sharaaba uu cuno, waxa weeye barakay u noqonaysaa. laakiin anigu waan dherganahay mana saxuuranayo, arrin fiican maahan arrintaasu. waa in marka arrintaas la iska ilaasho, amarkaas waa in la qaataa, asoo amarkaasuna amru nadbiyaho ama amru wujuub aanan ahaynin. tasaxaruudaas mar walba way taagan tahay, ama dherganaaw ama gaajoonaw, arrintaasu mar walba waa ay taagan tahay. marka saxuurtu saas weeyo quwa cala soom wa ajran cadiimanaa laga helayaa. maxaa yeele wuxuu niyatulcibaada ayuu wax u cunay. shay kasta oo la samaynaayo haddii cibaado loo niyeysto oo khayr loo niyeysto ajiraa laga helayaa. xadiiskii waa to rasuulku calayhi salatu slam wa fii bulci axadikum sadaqatun ow rasuulku, axadkiina bulcigiisa sadaqo ayuu dinya. oo ninku sawjadiisa hadduu u tago asagoo niyad wanaagsan ay ka tahay oo waxa weeye inuu ubad ka helo, inuu naftiisa ku dhowro, sawjadiisa inuu ku dhowro, sidaas niyadaas hadduu ku tago oo bisinka u qabto waxa weeye ajirow ka helaya. xataa acmaasha kaleentood markaad niyo wanaagsan aada la timaado niyadaasaa aa insiraaf ku ridayso khayr ayaa laga helayaa. marka waxaa rabaa qofka mu'minkaa wax kastou qabanayo inuu niyadiisa uu ku fiicneeyo oo niyada markaas uu ku qurxiyaa loo baahan yahay. waxaa kaloonu soo qaadanaynaa saxuurkan marka maxaa uu yahay xukunkiisu. waxaa weeye saxuurkan horta waxaa weeye waa khaasiyatun min khawaasi ummatulmuxamed. waxaa weeye ummatulmuxamed ayaa saxuurka uu ku khaas yahay. maxaa yeele horay casharkeeni horo waataan soo qaadanay soomu ahlilkitaab, ahlukitaabka soonkoodi waataan soo qaadanay, iyo islaamka awaa'ilkiisi sadrulislaam sida soonku ahay inay isla heeday. marka hadda saxuurkaa la saxuuranayo waa khaasiye ilaahay annaga haddaanahay ummatulxamedna la siiyey oo nicmo ah weeye. markaas waa ilaahay subxaanahu watacaala deeq alla uuna siiye weeye, inaan marka ka faa'iideysano ayaa loo baahan yahay. wuxuu noo cadaynaya marka rasuulku calayhi salaatu salaam annaga iyo ummadihii naga horeeyey saxuurka ka inaana isaga mid ahayn. xadiis laga wariyey saxaabiga la yidhaha camar ibnu alcaas waxau ahay ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaal faslu maa beyna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaabi aglatu saxari. xadiiskaas umahaadka waxaan werin imaam albukhaari mooyaane inta kale waa werisa. waxau dhahay rasuulkeena calayh الsalaatu wasalaam faslu maa shaygana kala saaraya annaga soonka aanu leenahay iyo ummadihii naga horeeyey, faslu maa shayga kala saaraya beyna siyaaminaa soonkayna iyo wa siyaami ahlilkitaabi dadka ahlu kitaabka naga horeeyey soonkooda waxaa weeye aglatu saxari suxuurta la cunaayo. aglatu saxar weeye. macnaha xadiiska waxaa laga wadaa asuxuur huwa alfaariqu beyna siyaamina wa siyaami ahlilkitaab. waxaa weeye macnuhu suxuurtu waa midda kala saaraysa annagaan ummatulmuxameda soonka aanu leenahay iyo soonkii dadka ahlu kitaabka ahay. fa inahum kaanuu laa yatasaxaruuna
maxaa yeele dadkii ahlu kitaabka ma suxuuro jirin saan horuu soo marnay lixurmati alakli calayhim waxaa ka xarimnay markaasi inay wax cunaan idaa naamu markii hurdaan. islaamka bilowgiisa inuu saasay horaa u soo marnay. arrintaa marka xadiiskan waxaa ku sugan saxuurta in laysku adkaynaayo, waa laysku adkayahaa saxuurta. maxaa yeele waxa kaloo meesha ku jiraa waxay tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray ahlulkitaabka inaan khilaafno, ahlukitaabka inaanu khilaafno. marka hadda mukhaalafadoodii la isfaray noqonaysaa haddana, oo saasay haddana waxay ku tahay faa'iido kaley ku tahay. saxaabada rag ka mid ahaa maalin rasuulkeena calayhi salatu wasalaam waxay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi ina alyahuuda yatasarwaluuna walaa yatasiruuna. nimankan yahuuddaahu sirwaal kaliyahay qaataan, hoos gunti ma qaataan. rasuulku markaas wuxuu yihi calayhi salatu wasalaam tasarwaluu watasiruu wakhaalifu lyahuuda u dhah, sirwaalada qaata u dhah, hoos guntiyaasha qaata, laakiin yahuudda khilaafa u dhah. oo hadda waxa weeye yahuudda ku khilaafa waxyaabaha markaasi shareecada islaamka kasoo horjeedo dhaqankoodana ku khilaafa, laakiin sarwaalkiina ha ugaga tegina, hoos guntiga haddee siraaba idinku qaadanayseen. marka arrintan hadda waxaa ku sugan mukhaalafatu lyahuud, yahuudda in la khilaafo. saasay markaasay waxay ku tahay faa'iida ku tahay. saxuurta hadda marka waktigeeda emise ayuu la egyahay, xadiis laga ogaanayo ayaanu soo qaadanaynaa. saxaabiga la yidhaha zayd ibnu saabit radia allaahu canhu waxa uu dhahay tasaxarnaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama suma qaama ila asalaati. asagoo dadka uga sheekaynaya zayd waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan la suxuuranay, ka bacdi markaa la suxuuray suma qaama ila asalaati, nabigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii subax u istaagay. markuu saas dhahay waxau dhahay zayd qultu waxaan dhahay waxa weye zayd mahee waa raawi ka sii wariye waaye. qultu waxaan dhahay yuri oon zayd aan ku dhahay kam kaana bayna alaadaani wasuxuuri, aadaanka iyo suxuurta maxaa u dhexeeyey? aadaanku waxaa weeye aadaanka salaada subaxa oo fajarka la aadaamayo oo salaada kabacdeed la dukanaayo ayaa loola jeedaa. marka waxaa weeye aadaankaas iyo saxuurta in mise ayaa u dhexaysa waqti ayuu ka wadaa. waxaan dhahay yuu dhahay markaasi kam kaana bayna alaadaani wasuxuuri, aadaanka iyo suxuurka imisaa u dhexaysa waqti? qaala markaas wuxuu dhahay yuri zayd qadru 50 aayatan, 50 aayadood intii laga akriyo qadarkeeda u dhexaysay. 50 aayadood oo waxa weye waxaa laga wadaa aayadaha dhaadheerna aan ahaynin, aayadaha gaagaabana aan ahaynin, oo markaasi aayadaha dhexdhexaadka ayaa laga wadaa. qadru qiraa'ati 50 aayatan weye bidariiqatin wusta ayaa laga wadaa. culummadu waxay ku qadareen 50kaas aayadood suuratulmursalaad intii laga akriyo, suuratulmursalaad intii laga akriyo intaas ayaa waxaa weeye ayaa markaasaa u dhexaysay dheheen. marka waxaa la isku baraarujinayaa markaasi dalabu suxuur, suxuur in la iska dalbaayo. haddana wa an takuuna qubayla alfajri, fajarka wax yar ka hor inay ahaato, fajarka salaada inay u dhowaataa la rabaa. sababtoo ah xigmadeeda waxaa ka mid aheeday soonka in loogu xoogeysa biri la soomaayo. haddii markaasi waqti horeo fog la cuno caweesha ay ka baxdo, maalintii soo socotay qofkii soonkii uma xoogeysa karaayo. waxay culummadu yidhaahdaan marka qofka saxuurta ah wuxuu ka dhigan yahay qof quraacdoo kale waaye. maalinta aad quraacato inaad maalintaas aad joogto gaajo la-aan aad i aday kugu sahlan tahay. qofku haddou quraac fiican ou quraacdo waxa weeye qada waa iska dhaafi karaa oo qada baahi u qabi maayo. qofka saxuurtaana asaguna sidaasoo kale weeyo, waxaa weeye maalintaas wax dhibaata u qabayo ma laha. saasaa marka waxaa loo baahan yahay dadka ummatul maxameda inay ku dadaalaan saxuurta, ay ku dadaalaan loo baahan yahay. waana maa yustaxabu lisaa'imi, qofka sooman waxyaabaha loo sunneeyo oo markaasi baabka aynu ku soo qaadanay ayay markaasay ka mid tahay.
riwaayad waxaa jirta imaamu nasaa'i uu wariyey iyo abu daa-uud oo aheeday calaykum biqadaa'i suxuuri fa inahu huwa alqadaa lmubaaragow rasuulku xadiiskaa marka kaasoo sii cadaynayo o dhan waxau dhahay waxaad laasimtiinow dhahay qadaa'i suxuur suxuurta cuntadeeda qadow ka cabay rasuulka alayh salatu salaam saa hadda waa u sheegeynay meeshaanaa laga qaatay qofku hadduu saxuurto wuxuu ka dhigan yahay qof waxa weeye markaasi subaxdii wax cunuu ka dhigan yahay quraacda meesha aan dhahayna qadaa la yidhah sideedaba xagga luqada ayaa la kala bedelay bani aadamka waxa weeye waxa uu ahaa jiray weligiis maalintii 2 jeer ayuu wax cuni jiray waqtiga subaxa ah oo salaada subax laga soo gudbo oo maalinta ay noqoto ayaa uu wax cuni jiray intii zawaalka laga gaarayo waxyaabaha la cuno waxaa loo yaqaanaa alqadaa ayaa la dhahaa meesha hadda markaasi aan quraac ka dhahayno maa bacda zawaal ila alguruub wixii la cunane waxaa la yidhaahdaa ilaa iska sii wad waxaa la yidhah alcashaa ayaa la dhahaa marka waxaa adduunka macruuf ahaa jiray ee waqtigaas qadad oo hadda quraacda u naqaano iyo waqtigaas cashada labadaas waqti oo la cuno ayaa bani aadamka weligiis taasaa mashhuur ahaa jirta cuntadan kaloo marka waxaa weeye annagu aan isku derderayno waa laga fiican yahay marka annagoo sii qaadan doona waxyaabihii kalentood oo markaasi ku tacalluqayey bishaan ramadaan hadda darsigeeni 10aad intaasuu ku egyahay hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu